maxaad ka taqaanaa kaadka raadadka qadiimiga ee degmada Taleex? Taleex waa magaalo taariikhi ah oo ku taala bariga gobolka Sool ee Soomaaliya. Waa magaalo buuraley ah oo dhacda bartamaha dooxada Nugaaleed. Waxay xad la leedahay gobolada Nugaal, Sanaag iyo Bari. taariikhyahanada ayaa wariya in Taleex dhismaheedu bilowday horaantii sanadkii 1900. Ereyga Taleex waxaa loo adeegsadaa sifaynta guud ahaan qalcadihii daraawiishta ee magaalada. haddana waxay qusaysaa mid ka mid ah dhismayaashii afarta ahaa ee Falaad, Silsilad, Darlalo iyo Taleex. dhismayaasha soo dhisay sanadihii 1901 ilaa 1915. Taleex waa dhismayaasha tan ugu weyn. hase yeeshee waxaa la dhisay intii u dhaxaysay sanadihii 1909 ilaa 1910. Buddigna waxay u ahayd halgankoodii daraawiishta iyo hoggaankoodii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ee gumaysla dirirka. sidoo kale waa magaaladii ugu horeysay ee qaaradda Afrika ee ciidamada Ingiriiska ay u adeegsadeen duqeyn diyaaradeed.